wasiirka cadaaladda aad u maasay marka la kulmay dadku waxay sheegaan inay yihiin team oo sidii nimanka la dagaalamayo oo soo socda wadada ku soo jiro raba inay dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan oo dawladnimada dhibaateeyaan oo wixii la soo kabay dumiyaan ma absolutely not marnaba ma dagaalamayno violence ina ma galino xitaa ma aytano afkaar dagaal kuma jirto afkaarteena annaga dagaal kuma jirto qori ma wadano qof muslim la dagaalamayo dilay waxaan ka soo horjeednaa qof kasta oo Soomaaliya qofka Soomaaliya inuu dhinto ka soo horjeedna hatta midka kaafirka ah oo gaalka oo mactabka wata inuu dhinto marno waay waxaan awood u leenahay anigu haddaan helo ninka mactabka wato Soomaaliga haddaan helo 5 daqiiqo haddaan helo waxaan ka dhaadhicinayaa inuu diintiisa ku soo laabto ilaahay inuu ku xirnaado hal qof nagama go hal qof inuu naga dhinto marno midka shabaabka inuu dhinto marno midka sarkaalka inuu dhinto marno midka dawladda ku jira inuu dhinto marno fanaanku inuu dhinto marno hal qof oo Soomaali marba inuu dhinto marka waxa leedahay marnaba ma soo jeedin professor Sufyaan iyo xisbigiisuba in la dagaalamo dagaal wax la yiraahdo maya cid kala dagaal la galo oo fikir diini lagu la dagaalo waxaan rabaa arintaas inay cadaato horena waa u yiri haddana waa ku celinayaa anagu xisbi siyaasadeedan waxaan rabaa wadanka inaan xukuno anigu waxaan musharax madaxweyne waxaan rabaa wadanka inaan maamulaan rabaa wadankan Soomaaliya madaxweyne ka noqdaan rabaa therefore waxaan anigu rabo inaan maamulo waxaan rabaa meesha ay wax joogaan inta la soo dhisay inta la soo qabtay barteedana ka sii wadno inaan dudumina marno صح xisbiga tala ku nool marnaba qaacidadiisa kuma jirto in la dagaalamo la dhiirigeliyo dagaal loo ololayo dagaal ama la aytamo intaba mamnuuc naga tahay qofku markuu xisbiga soo galaayo shuruudda ku xiran waxa weeyaan markuu aqbalo haykalka guud ee xisbiga alkitaab wa sunna calankii astaanta qaranka in la bedelo la baasaboor la wadanka inuu san xilka qaban karin oo qof ajnabi ah wadanka inuu san xilka qaban karin oo aan soo wadna fikir la yiraahdo ama tag ama tour baasaboorka kaleeto in la badiyo guurka luqadda carabiga luqad afka Soomaaliga lagu qoro luqadda carabiga muqaadaraadka in la dagaalamo taariikhda Soomaaliya dib loo qoro waxaas oo dhan markuu aqbalo waxaan leenahay waxaad ugu ololeynaysaa intaas bidariiqi sil wadada nabadda haddii qofku caayo ma ay kartid oo dam dhaafaysa oo qofka xisbiga tala ku nool ku jira dagaalna uma ololay kartid ma dhiiri gali kartid haddaad intaas samayso xisbiga waa ka saaray waa war wanaagsan shaqaalaha dawladda iyo xildhibaanada maxaa ka aaminsantahay annagu waxaan aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliya oo aaminsan alkitaab wa sunna in la isku xukumo waa muslim qofkii diidan alkitaab wa sunna in la isku xukumo waa gaal baarlamaanka dhexdooda maalin ilaahay keeno qodob la keeno oo baarlamaanku xitaa waa iska diidaan waxay dhahaan waxaan diinta islaamku ma ogola ma yeelayno baarlamaanka qayb kamid ah maalin walba yiraahda wixii diinta ka soo horjeeda anaga yaana loo imaan taas horta baarlamaanka laftirkooda xitaa iyo dadka Soomaaliyeed waa la wada qabaa ma sha Allah waxyaabaha cajiibka oo soo diinta diidan wasiirka cadaaladda waa la wada qabaa nacam ma sha Allah waxyaabaha cajiibka oo waxaan soo arkay hay'adda nisa waxyaabaha aan ku arkay waxa kamid ah niman cuqdada ku jirto cuqdada maxay ku jirtaa diintoodii raban man heli karaan kulligood waxay ku leeyihiin warna wadankeenu ku xukumo alkitaab sunna haddana saasoo tahay ninkii dhahay wadanka alkitaab sunna lagu xukumo ciqaabay sababta u geysana wax waaye hunguri iyo cabsi iyo ayagoon awoodi lahayn anagu marka waxaan rabnaa inaan empowerment sameeyno xisbiga tarkuno la dana shacabka inaan barno dadka inaan dhiiri galino in afka ay ka yiraahdaan ku dhiiradaan marna inaan wax dumino taas culimadu way masaajidii ka tiraahdaa quraankeena ku taala in xukmu illa lillah quraankeena ku soo laabataa in wax weeye kitaabka ilaahay dadka lagu xukumo culimada sheegta wax weeye taas horta xagga noo dhig dagaalka lagu la jiro nimankan qawaariista sidee u aragtaa fikir ahaan in la dagaalamo nimankaas go'aanka dad badan oo Soomaaliyeed su'aashaas u baahan ina faahfaahiso laga rabo go'aanka aan qaadanay kadib markii maxkamadda aan tagnay xisbiga tarkuno waa shirnay waxaan go'aan qaadanay su'aal ku saabsan xarakatu shabaab inaan ka jawaabo sababtuna waa ku sheegaa waxaa la igula dagaalamayaa alkitaab wa sunna la isku xukumo cidiidan waa gaalinaar sida daraaddeed si aan la kugu soo gamban shacabka Soomaaliyeedna aysan loogu qaldin oo aan fursad u siinin kuwa diidaya in Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada la isku xukumo waxaan go'aansanay su'aashaas su'aal dambe oo ku saabsan al-shabaab inaan ka jawaabo waa mahadsan tahay horta hadda cid diido tiri anaga kitaabka Ilaahay ma ku dhaqmayno dalkaana ma lagu dhaqaayo dawlad iyo shacab oo meel la soo istaagtay horta ma bahayno wali Sufyaan Sheekh Ahmed ma musharax mansab siyaasadeeda yes anaga xisbiga tala ku nool waxaan wadankeena xukumo waxaan xisbiga maanta ugu ballaaran 12250 waxa hadda aan jeclahay intaan muddadan joogo oo lolahan wadno in dadku u soo bato 12250 qof diiwaan gashan qof walba video ugu soo duub aad iyo oo uu leeyahay xisbigan ku jira
وودينا هدية اللي راهو وحارنا ودن كان إن حكمه وحارنا ودن كان الكتاب والسنة لو حكمه وحكلوا جوان كان وياسان هربوا شيء هدي كوح كلا نوجه مرتو أو إلهي ربي وهذا كون هذا ما أنت ماشي جوجا هدينا لك جوه مرو أو كوح كلته أي كوجول ستو الكتاب والسنة ودن كان لو حكمه وجوجيننا أي كان تاجرين أنا أقول مركب وحنا مشرح مدحويني وحنا ودن كان حكمه وحنا ودن كان الكتاب والسنة قوي وطي هو مسقح عادي هو عند الله عدي كوجول سته إن ودن كان لو حكمه الكتاب والسنة وتاجرين su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxa waaye maxaa ka aaminsan tahay dastuurka qabyo qoraalka annaga waxaan hadda muslimiina dastuurkeena qabyo ma dastuurkeena waa dhameystiran Allah subhanahu wa ta'ala kun yafur boqoliyaha sana ka hor noo sheegay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diinan dastuurka haddaad muslim tahay dastuurka qabyo qoraal ma dastuurka waa dhameystiran kitaabka quraanka waa dhameystiran ninka dastuurkiisu qabyo yahay waa inaan diin islaam haysan waa soo gabagabeynayna barnaamijka ugu dambeyn maxaa ku darsanaysaa dadka Soomaaliyeed waa maxay fariinta u direeda xisbiga tala ku nool iyo dadka Soomaaliyeed fariinta u direysaa maxay tahay wasiirka cadaaladda aad u mahadsan tahay mar kaleeto taageeradaadii macnaha inaad ka hadashay waxaan rabnaa labo arrimood inaan ka hadalno awalan waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inoo sheegno anagu waxaan xisbi siyaasadeed waxaan rabnaa aan halkaan Muqdisho aan joogaa maanta waxaan u fadhinaa qola alla qoladii rabta in ay nagala doodo fikirkan qabno diyaarana ama calanka haato ama astaanta haato ama dastuurka haato diyaarona waxaan kula daarmayna shacabka Soomaaliyeed in aan la xirinin aysan taageerin in lagu xiro qof inuu yiraahdo aan isku xukun al-kitaab wa sunnah qofkii diidana waa gaal because xaq waa qofkii diida al-kitaab wa sunnah in isku xukumo waa gaal maxkamadan kay laakiin waa jareen intaas waa qariyeen dardaarankood kaas waa waxaan kula rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed anagu waxaan xisbi siyaasadeed waxaan rabnaa inaan waxaan dalad aan rabnay inaan ku midayno dhamaanba firqooyinka diiniga ee duwan ee macnaha Soomaaliya ka jira kala duwan oo keentay maantay kala togoodu uu keenay in wadankii dimuqraadiya lagu xukumo iyo federalism iyo waxaan aan aqoon waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan waxaan ugu baaqaynaa inay taageeraan waxaan ugu baaqaynaa wadankeena si nabada inaan ku gaarno in lagu xukumo al-kitaab wa sunnah waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed hadda wixii ka dambeeyay inay ka qanci doonaan soo dhawaada waxa aan joognaa waa Muqdisho وما سنتها بروفيسور thank you very much وريها أحمد ورنا سيدات هاي في عنا أبي أديكو سيداتها شغل كجراي ورا لينا وفي عنها يا لعقت عدة مصادرتي قالي حتى وابلا راشيني أبي سيدان كو صادر على لعقتها ودان صارن هاي وريها مقالات شوكتها مياذا مقال أذي جنبي سي أو أتوس يقصوا ديري كرتين لعقتها هيا أبي برسوق أنت شابيه أبي مساس أي أفضل إن العقل وصل بيسي هدي أتكون نوشهاي أمريكا يوروب كندا واحد سهل نقول دري كرتها العقل إيه الكاجا يا أصحابتها أديكوا استعمالي أديك بيسي وحين توصل قد عيسى أديك يدان كلا EVC زاد سهل إم بيسا بلنتين وا بيسي